dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay halganka SSC qaatumo qodobada daawan doontaan waxaa kamid ah mid kamida goobihii ugu weynaa duqeymaha ciidanka Somaliland oo la burburiyay xilli ciidanka SSC ay madaafiic culus ku garaaceen goobihii ugu badnaa ee difaaca ciidanka Somaliland dhaqdhaqaaqyo culus oo caawa ka soconaya aagaga bari ee duleedka magaalada Laascaanood xogihii ugu dambeeyay iyo xaaladda aagagaasi ayaan kula wadaagi doonaa daawade qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaa barnaamij wareedkeena daawadayaal intaan guda galin faahfaahinta qodobadaasi fadlan muuqaalka like taabo una sii share garee saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada nagu soo biiri daawade haday tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay channelka wararka ka imaanaya duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa ku soo waramaya in duqeymo culus lagu garaacay aagaga kala duwan ee difaacyada ciidamada maamulka Somaliland duqeymahan oo adeegsadeen ciidamada SSC qaatumo ayaa si weyn waxa loogu garaacay aagag kala duwan oo kamid ahaa duleedka magaalada Laascaanood oo ay ku sugan yihiin ciidamada maamulka Somaliland difaacyada sida gaarka ah madaafiicdan loogu garaacay waxa kamid ah aaga bari ee maraaga halkaasi oo dhaqdhaqaaqyo xoogan ka wadeen ciidamada maamulka Somaliland mid kamid ah saraakiisha sare ee xilligan halkaasi ku sugan oo aan la hadalnay ayaa sheegay inay bartilmaameedsadeen goob ay Somaliland doonaysay inay ka soo duqeyso magaalada Laascaanood waxaana uu sargaalkan nala wadaagay mid kamid ah muuqaalada laga helay halkaasi oo gubanaysa waxaana uu sheegay in ay si weyn u burburiyeen aagii ay Somaliland soo dhoobtay halka madaafiicda culus ay u yaaleen oo ay doonaysay inay ka duqeyso magaalada Laascaanood sargaalkan waxa uu sheegay inay heleen xogaha culus ee ku aadan in Somaliland ay duhurnimadii maanta doonaysay in ay si weyn aaga bari uga duqeyso magaalada Laascaanood waxaana halkaasi ku dhacay duqeymaha madaafiicdii ugu badnaa waxaa la helay muuqaalka oo ka muuqanaya goob holceysa oo ay ku dhaceen ilaa iyo dhowr madaafiic oo kamid ahaa difaacyadii ugu adkaa ee aaga maraaga halkaasi oo ay Somaliland sida uu nala wadaagay sargaalkan ay keentay mid kamid ah hubka wax duqeeya ee loogu talagalay inay ku duqeyso magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool xogii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in caawa dhaqdhaqaaqyo culus ay ka socdaan aaga bari ee duleedka magaalada Laascaanood kadib duqeymihii cuslaa ee halkaasi lagu burburiyay waxa wararku ay sheegayaan in Somaliland ay halkaasi dhaqdhaqaaqyo culus ka wado sidoo kale ciidamada SSC ayaa halkaasi geeyay ciidamo kale oo dheeriya iyo sidoo kale gaadiid dagaal oo caawa halkaasi ku sii qulqulaya wixii xog ay ku soo kordha xaaladda aagaga kala duwan ee duleedka magaalada Laascaanood waxaad ku daawan doontaa wararka iyo warbixinada xigay aan halkan ku baahino guud ahaanba magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ciidamada naflacaari aaga maraaga ee saldhigga gooja cadde ciidamada naflacaariga ah ee SNM ayaa saacadihii ugu dambeeyay ee maanta abaara 4tii galabnimo waxay isku dayeen in dhaqdhaqaaqyo ay ka sameeyaan waxayna isu diyaariyeen in ay duqeeyaan guud ahaanba magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ciidamada naflacaariga ah ee SNM oo si weyn u arkay jahwareerka tooska ah ee ka dhex gudaha hoggaanka iyo saraakiisha ciidamada SNM iyo Muuse Biixi oo ku wareersan xaaladda isla markaana ku hanjabaya in xilka qaadis uu ku sameeyo Nuux Taani mucaaradkii oo hubkooda gurtay iyo sidoo kale tallaabooyinka kale ee u muuqda in si weyn ay uga soo dhalaalayaan gudaha dhankaas iyo deegaanada SNM waxa ay qaateen tallaabo ay doonayaan in ay jihada ugu soo wareejiyaan dhankaas iyo deegaanada SSC ciidamada naflacaariga ah ee SNM ayaana waxa ay qorsheynayeen in ay si toos ah madaafiic ugu soo garaacaan magaalada sargaalka lagu magacaabo Cabdi Madoobe iyo saraakiisha kale ciidamada xaquudirka SSC oo si dhow ula socday dhaqdhaqaaqa SNM iyo sidoo kale tilaabooyinka kala duwan ee qaadayaan ayaa waxa ay go'aansadeen in dhankooda ay sameeyaan falcelin ka hortag ah inta aysan naflacaariga SNM sameyn wax tilaabo ah isla markaana aysan go'aan rasmi ah oo ay qaateen dhaqan gelin saraakiisha xaquudirka ah ee SSC ayaa waxa ay si toos ah ugu xilsaareen sargaalka lagu magacaabo Cabdi Madoobe in falcelintaas isagu sameeyo isla markaana uu jawaab celin rasmi ah siiyo naflacaariga SNM ciidamada naflacaariga ah ee SNM oo fadhigoodu yahay aaga maraaga ayaa waxa ay si toos ah isugu qorsheynayeen
in ay madaafiic ku garaacaan magaalada laascaanood waxay sidoo kale qorsheynayeen in weerar kooban ay qaadaan si xaaladaha ka jira gudaha SNM ay ugu soo leexiyaan dhankaas iyo saldhigga gooja cadde go'doonkoodana ay tusaan SNM-ta ishaysata balse sargaalkan lagu magacaabay Cabdi Madoobe ayaa si toos ah u fashiliyay dhammaanba isku dayadoodii Cabdi Madoobe waxa uu heegan buuxa geliyay ciidamada madaafiicda waxa uu sidoo kale heegan buuxa si toos ah u geliyay dhankaas iyo ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC qaybta lugta waxa uuna qaybta madaafiicda ku amray in marka amarka kama dambaysta uu bixiyo ay si toos ah madaafiicda ugu garaacaan aagga maraaga ee saldhigga gooja cadde isagoo sidoo kale amray dhankaas iyo ciidamada xaq u dirirka SSC qaybta lugta in ay dagaalka si toos ah uga qayb qaataan ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC ayaana marka ay u dhawaadeen iyagoon SNM-tu ka warqabin aagga maraaga waxaa mar qura iyagoon ka warqabin ciidamada awoodda leh ee aagga maraaga difaacyadooda ku soo dhawaaday uu Cabdi Madoobe amray in madaafiicda lagu garaaco madaafiic ayaa lagu harqiyay difaacyadooda iyo sidoo kale goobihii ay madaafiicda ku diyaarsanayeen waa ay kala carareen waxayna garan waayeen jihooyinka wax ka socdaan iyo sidoo kale qaabka weerarkan halista ah loo soo maleegay welise ma aysan fahansanayn in ciidamo infantry oo lug ah oo sargaalkan Cabdi Madoobe uu hogaaminayo ay aagooda ku sugan yihiin madaafiicda ay inta badan ku kala xareeyeen godadka ay ku jiri jireen ciidamada ayaa sidoo kale difaacyadooda kala farfariistay iyagoo garan la jihooyinka difaacyadii madaafiicdu ay ku daateen ayay mar kale ciidamadan SNM isaga baxeen iyagoo u arkaya in si dhow loola socdo difaacyadooda iyo goobaha ay ku kala jiraan waxayna isku dayayeen in qayb ahaan gadaal ay u ruqaansadaan halka saraakiisha qaybtoodna ay dalbanayeen in horay loo ruqaansado oo ciidamadu ay difaacyada horay uga baxaan ugu dambeyn waxaa la raacay isla markaana ay ku adkaaday dalabka saraakiisha dalbanayay in difaacyada horay looga baxo sababtuna waxay tahay in aysan fahansanayn in horay ciidan ka fadhiyaan kaliya waxay ka hadlayeen khibradda dagaalka iyo sidoo kale in ciidamada oo gadaal loo soo qaadaahi ay jabka sii adkeynayso ciidamo kalena ay difaacyadooda la wareegi karaan balse taas bedelkeed waxay go'aansadeen in difaacyada ay horay uga baxaan oo horay difaacyo kooban ay ka samaystaan inta la duqeynayo difaacyada marka ay isku dayeen in ay horay uga soo baxaan difaacyadanba waxaa lagu si toos ah ay fooda isku dareen ciidamada xaq u dirirka SSC nafla caarigu iyaga oo wax war ahayn ayaa Cabdi Madoobe u amray in si toos ah loo beegsado isla markaana waxay ku war heleen xabadda oo nin walba madaxa meel halisa iyo sidoo kale goobo muhiim ah oo loo tababaray ciidamadan kaga dhacaysa waxay mid walba arkay saaxiibkiisii la socday oo darbiga madaxa ku sii dhufsanaya mid dhiigaya mid qaylinaya mid alalaadaya mid dhacaya iyo mid garan la goob ay wax ka jiraan qaybtooda yaa qoryaha inta tuuray ka cararay kuwa kale nolol ayaa lagu qabtay waxaana la fashiliyay dhammaanba isku dayadoodii ciidamada xaq u dirirka SSC ayaa muujiyay in ay ka tayo iyo tiro iyo awoodba badan yihiin ciidamada nafla caariga ah ee SNM maanta ilaa galabta isku dayadii ay sameeyeen ayaa ugu dambeyn fashil ku soo dhamaaday sargaalkan lagu magacaabay Cabdi Madoobe ayaa la wareegay difaacyadii ay ka soo baxayeen ee aagga maraaga wuxuuna halkaas ugu dhigay cashir lama ilaawaana Cabdi Madoobe ayaa waxa uu si toos ah u tusay ciidamada nafla caariga ah ee SNM awoodda kartida isku duubnida iyo xog ogaalnimada ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC iyaga oo si toos ah banaanka u soo dhigay tillaabooyinka gaarka ay wajahayaan iyo sidoo kale goobahooda gaarka ah ee dhibaatooyinku ay dul hoganayaan ciidamada nafla caariga ah ee SNM ayaana waxay si toos hadda u qaadanayaan go'aano iyo tillaabooyin muujinaya xaaladan iyo wax ka qabashadeeda iyadoo sidoo kale si toos ah go'aan looga qaadanayo in la joogteeyo meeshana laga saaro dhibaatooyinka gaarka ah iyo caqabadaha ay wajahayaan ciidamada nafla caariga ah ee SNM waxay u muuqdaan in si walba ay u fashilmeen marka la fiiriyo tillaabooyinka iyo go'aanada gaarka ah ee ay wajahayaan nafla caarigan SNM ayaana la sheegay in si walba ay ugu fashilmeen waa tillaabooyinkii dagaalka iyo isku dayadii kala duwanaa ee ay sameeyeen iyadoo sidoo kale meesha lagaba saaray wax walba oo muujinayay xaaladan iyo wax ka qabashadeeda iyadoo sidoo kale banaanka la soo dhigay
dhammaanba tillaabooyinka iyo go-aanada kala duwan ee la qaadanayaahi in ay yihiin kuwa meesha ka saaraya caqabadaha iyo culeysyada gaarka ah ee dul hoganaya. ciidamada naflacaariga ah ee SNM ayaa hadda waxaa dul hoganaya su'aalo kala duwan oo u baahan in loo helo jawaabo rasmiya. Muuse Biixi waxa uu arkaa jawaabta ugu habboon ee wax looga qabanayo jabka soo gaaray naflacaarigu inuu yahay in xilka laga qaado Nuux Taani. dhankooda SNMna waxay sheegeen intaasi aysan ahayn jawaabta rasmiga ah. saraakiisha sarsare ayaa diidan xilka qaadista Nuux Taani, waxayna u arkaan dhammaanba tillaabooyinka iyo go'aanada la qaadayaa inay noqdaan kuwa ka tarjumaya deegaanka iyo sidoo kale wax wada lahaanshiyaha. Muuse Biixi mararka qaar xitaa waxa uu soo dhigay tallaabo kale oo uu ku doonayo in uu kaga dhaadhiciyo saraakiisha iyo xubnaha ka agdhow in xilka uu ka qaado Nuux Taani. waxa uu sheegay in xilkan uu magacaabayo nin ay isku dhow yihiin ama qaraabo dhow yihiin Faysal Cali Waraabe. waxaana sheegay haddii Faysal Cali Waraabe uu gacanta ku dhigo sargaal ay isku dhow yihiin oo isaga daacad u ahna uu u dhiibo ciidamada in xitaa uu baabi'in karo isku dayada jifada garxajis ee beesha Isaaq ay doonayaan in nidaamka SNM ee Somaliland ay kaga soo horjeestaan isla markaana ay ku burburiyaan. balse isku day walba iyo been walba oo uu qooshay Muuse Biixi ma jirto cid aaminayso oo dadka oo dhan waxay ku leeyihiin maya ma soconayaan waxa sidaan Nuux Taani inta dagaalku uu socdo. Nuux Taanina dagaalka waxba kuma keeno, nabadna waxba kuma galo, siyaasad waxba kama galo, wax uu og yahay ma jirto. isaga ayaa dhaawiciisa la tacaalila oo Hargeysa ku dhibaataysan. Muuse Biixi runta ayuu arkaa naflacaariga SNM saraakiishooda iyo siyaasiyiintooda Hargeysana wali indha sarcaadkii beenta ahaa ee Muuse Biixi xitaa wax kaga akhriyay oo hadda arkay inaysan soconayn ayaa indhaha ka haya oo waxay u arkaan in nidaamka SNM uu waayay sii joogi karo. ayaan idiin soo gudbin doona wararka soo kordha iyo sidoo kale tallaabooyinka naflacaariga ugu dhaarinaynaa in aadan xeelad hoosaad iyo shaqo ay leedahay SNM iyo maamulka Muuse Biixi inaadan ku jirin una imaan sool iyo maxaan ku dadkeeda aadan u imaan wa kugu wallaahiba ma kugu bilaahiba ma kugu tallaahiba wabillahi tawfiiq. waxay macaawa ay tahay taariikhda 11 bishii Juulaay 2023 waxaa xafiiska guddiga SSC Khaatumo marti noogu ah gudoomiyihii hore ee gobolka Sool Master Cabdiqani Maxamuud Siire, kadibna ahaa gudoomiyihii degmada Gabiley. gudoomiyuhu markuu u adkeysan kari waayay dhibaatada lagu hayo dadkiisii iyo dalkiisii wuxuu iskaga tegay oo ka tanaasulay maamulkii uu shaqaynayay ee SNM. sidaa daraaddeed si aanan u xaqiiqsano ummadana ugu xaqiiqino haddaanu nahay guddiga 33 uu joogo gudoomiyihii Abshir, waxaanu hortiina ku dhaarinaynaa arrintaas. kitaabka Ilaahay buu gacanta ku hayaa. Cabdiqani waxaan kugu dhaarinaynaa in aadan xeelad hoosaad iyo shaqo ay leedahay SNM iyo maamulka Muuse Biixi inaadan ku jirin una imaan sool iyo maxaan ku dadkeeda aadan u imaan wa kugu wallaahiba ma kugu bilaahiba ma kugu tallaahiba wabillahi tawfiiq. halkani waa xaruntii dhexe guddiga 33 ee ka talinta gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn. waxaa caawa noo yimi gudoomiyihii hore ee gobolka Sool, ka gadaalna gudoomiyihii degmada Gabiley ee gobolka Waqooyi Galbeed Cabdiqani Maxamuud Siire Carab, oo ah xubin deegaanka u dhalatay, ka xumaatay, ka dareen celisay in dhibaatada maamulka Hargeysa ku hayo dadka goboladan Sool, Sanaag iyo Cayn dega inuu ka damqado, inuu la dareen noqdo dadkiisa, inuu guddidiisii soo booqdo, inuu kalsooni buuxda siiyo mujtamaca Sool, Sanaag iyo Cayn meel kastoo ay joogaan. inkastoo ay aaminsan yihiin nin ka dhashay iyaga dadkooda uu yahay, haddana ciddii madmadow iyo tabasho kaga jirto Cabdiqani Maxamuud wuxuu joogaa caawa xaruntii dhexe guddiga. wuxuu la dareen yahay guddiga 33 wuxuu la dareen yahay mujtamaca gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn. Cabdiqani annaguna waanu soo dhaweynay. haddii alla kuu roon yahay caddaynta uu iscadeeyeyna waa uu ku mahadsan yahay, uuna ku faa'iidi doonaa insha Allah
waxaan la socodsiinaynaa Cabdiqani ilaa saacadii uu ku soo biiro inoo yimi oo deegaanka soo galay sidaa aynu ku ogaano sidaa uu ina kula shaqeeyo aynu kaga mid isku mid u ahaano gacmaha isqabsano Cabdiqani waa nin innaka ka dhashay wax dambiya oo gaar ah oo caawa loo haysto ama la daba qaadaya ma jiro cidii shaki iyo xumaan ka qabtay uu ka dhaartay inaanu ku jirin oo shaqo ku lahayn haddeer iyo wixii ka dambeeyna uu dadkiisa ka mid yahay beesha Bahar Samena uu qoys hoosaadka uu ka soo jeedana si mug iyo miisaan leh ayaa cuqaasha waxgaradka odayaasha dhalinyarada iyo haweenkuba uga dareen celiyeen iyo kuna aad bay u mahadsan yihiin ilaahay baa mahad leh suuqan halkan waxaan aad u salaamayaa guddiga 3 ah wax xafiiskooda caawa aan soo booqday runtii anigu waxaan u dhaartay bulshooyinka SSC Khaatumo inaan la mid ahay iyaga ka mid ahay ka dhashay la dareen ahay la shaqeynayo danahooda ka shaqeynayo bulshadii wararka badan ee runtii social media ka baxay u badnaa propaganda ilaahay baa aniga urkayga ogaa waxa aan u dhaartay waxa weeye dadkaygu halka uu marayo inay ogaato cid kasta iyaga cadow ku ah dadku wax aan dhaarta ahayn kuma qancayo islaameenahay waxaan jeclahay in dhaartaas ay aad tixgelisaan cid kasta oo runtii aniga dambiga gashan oo afis masaxab iga tahay anigu horaan idinka codsaday imikana aniga afiyay sababta inta dambe aniga socotay anigana urkayga ilaahay baa ogaayay sida aan u dhaartay baa iga salaha marka aad iyo aad waxaan idinka mahadcelinayaa odayaal runtii soo dhaweyntiina dee sida aan u dhaartay aniga farxad bay tahay gaara oo runtii aan ku faraxsanahay maxaa yeelay dadkaygu inaan shakiga ka saaro inaan Somaliland aanan la shaqaynin xil hadda u haynin dhaqaale ka qaadan iyo ku burburin waxaan iyaga u dardaarmayaa inay midnimada ilaashadaan inay danahooda ilaashadaan inay wararka lagu soo fidinayo ee cadawga soo dhexgelinayo ee arrimahan la midka ah waa arrin lagu burburinayo iyadoo aniga lagu sawirayo arrin lagu burburinayo ahayd wadarka sida loo bunbuniyay runtii dadka reer SSC Khaatumo waxaan ku waaninayaa mar labaad iyo mar saddexaad midnimadooda inay ilaashadaan wax midnimo ka qaalisan ma jirto